Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ardayda badankood maxay u neceb yihiin wax akhrinta. Dhammaanteen waxaa waajib nagu ah in aan xoogga saarno waxbarashada iyo akhrinta, sababtoo ah wax akhrinta ay bulsho horumar ku gaari kartaa. Sidaa daraaddeed, dhalinyarada ummadda waxaa waajib ku ah in ay joogteeyaan wax akhrinta. Sidaas kale qoyska iyo macallimiinta ayagana waxaa waajib ku ah in carruurta u jiheeyaan dhanka wax akhrinta. Waxay nagu boorinaysaa diinta Islaamka wax akhrinta iyo cilmiga, weliba waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah wadooyinka cibaadada lagana helo ajir iyo thawaab, isla markaana lagu horumariyo ummad mustaqbalkeeda cilmi iyo farsamo, loogana takhaluso mashaakilaadka soo wajaha bulshada. Sababta keenta in ardayda nacaan wax akhrinta waxaa ka mid ah: nambarka koowaad, shakhsiyadda ardayga oo liidata, kalsooni darro iyo xishood haysta naftiisa. Nambarka labaad, caajis badan oo ardayga u diida inuu guto waajibaadkiisa maalinlaha ah. Nambarka saddexaad, ardayga oo dhaca macallimiintiisana kala kulma ciqaab daran taa oo ardayga nacsiisa waxbarashada. Nambarka afraad, ardayga oo markuu dhaco ama uu keeno darajo hoose, waalidka iyo macallimiintiisa si joogto ah ugu hor canaantaan ardayda kale, taa oo aakhirkii keenta inuu ardayga aadi waayo waxbarashada. Nambarka shanaad, ardayga oo loo soo diro inuu ka soo jawaabo su'aalo tiro badan isla markaana adag, dhanka kale aan helaynin qof ku dhiirigeliya inuu ka jawaabi karo su'aalahaas tirada badan oona adag. Nambarka lixaad, ardayga oo la saaxiibo xun, kuwa oo ardayga ku riixa inuu barto waxyaabaha xun sida sigaar dhuuqidda, marmar qaarna u sii gudba isticmaalka daroogo iyo tuugnimo. Nambarka toddobaad, qoyska ardayga oo ku nool duruufo dhaqaale oo liidata, oo ardayga ku kalifta inuu u shaqo tago suuqa si uu ugu soo helo nolol maalmeedka reerkooda. Nambarka siddeed, deegaanka ardayga ku nool yahay oo ah mid aan amni ahayn, oo markasta ka dhacaan rabshado, dagaallo iyo musiibooyin rabbaani ah, mushkiladahaas oo ardayga u diida inuu wax akhristo. Nambarka sagaalaad ee ugu dambeeya, iskuulka oo aan lahayn wax ardayga ku madadaalo oo caajis ka baabi'iyo, isla markaana soo jiita dareenka ardayga, sidoo kalena jeclaysiiya aadidda iyo joogitaanka iskuulka. Fadlan walaal, haddaa ku cusub tahay kanaalka, subscribe saar.